بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال waxaan ku jirnaa runtii waqti adag, waqti waxaan ku jirnaa labadii xaram, Makka al-Mukarramah oo salaada lagu tukada 100,000 oo salaadood la dhiganta, iyo masjidkii Nabiga sallallahu alayhi wasallam oo salaada lagu tukado 500 oo salaadood la dhiganta. waqtigaas ayaan ku jirnaa masaajidda la xidhay. waxaan ku jirnaa waqti albaabadii masaajidda la xidhay. waxaan ku jirnaa waqti salaadii jumcaha iyo jamaacadii masaajidda laga joojiyey ayaan ku jirnaa. waxaan ku jirnaa waqti aad iyo aad u adag, oy dadku guryaha isku xidheen, oy dadku cabsanayaan. waxaan ku jirnaa waqti uu faafay xanuunkii corona ama aabuqi. walaalayaal, waatan haddaba amalkeenii iyo rajihii aan sugaynay, waatan bishii wanaagsanayd aan sugaynay inuu ilaahay balada inagaga qaado, waatan bishii barakaysnayd albaabka soo garaacaysa, waatan bishii qur'aanku, bishii soonku, bishii ictikaafku, bishii taraawiixdu, bishii towbadu, bishii laylatulqadrigu, bishii ducadu, waatan bishii aan sugaynay in badan. waatan walaalayaal, haddaan doonayno ilaahay inuu balada inaga qaado, fursaddii ugu weynayd ayaan haysannaa. ma doonaysaa caafimaad? waatan bishii caafimaadku. ma doonaysaa dembi dhaaf? waatan bishii dembi dhaafku. ma doonaysaa ducada inuu ilaahay kaa aqbalo? waatan bishii ducada la aqbalayay. ma doonaysaa ilaahay inuu inaga caafiyo, inaga ilaaliyo xanuunada iyo cudurrada xum? waatan bishii ilaahay la baryayey. walaalayaal, waatan bishii ramadaan. wuxuu ilaahay ku tilmaamay inay tahay bishaasi ayaaman macduudaat, waa maalimo kooban weeyaan, waa 29 maalin ama 30 maalimood weeyaan. bishii ramadaan ayaa timid. talow miyaan ka faa'iidaysanaynaa bishan barakaysan? talow miyaan cibaadaysanaynaa bishan wanaagsan? talow salaadii taraawiixda miyaan ilaalinaynaa bishan? talow salaatuleylkii miyaa la tukan? talow qur'aankii miyaa la akhriyi oo salaada lagu khatimi? walaalayaal, waxaa timid bishii aan sugaynay, bishii wanaagsanayd ayaa timid. waatan bishii ramadaan. miyaad doonaysaa walaal inaad caafimaad aad heshid? ma doonaysaa? waatan bishii ramadaan. miyaad doonaysaa dembi dhaaf? waatan bishii ramadaan. miyaad doonaysaa inuu ilaahay ducada uu kaa aqbalo? waatan bishii ramadaan. miyaad doonaysaa cudurradan jira inuu ilaahay kaa ilaaliyo oo kaa caafiyo? waatan bishii ramadaan. waa bishii dadka wanaagsan ay 6 bilood ilaahay baryayeen inuu ilaahay u gaarsiiyo. waa bishii ramadaan ee la sheegayay salafu haadihi al-umma, markaad magaalada madiine aad kor uga baxdid, waxaad maqlaysay guux iyo xiin ka baxaya magaalada, ood moodaysid dawiyun ka dawiyi naxal, inay shinni malab ku samaynayso ayaa moodaysay. qur'aanka la akhrinayo, ducada ilaahay la baryayo, oohinta dadka iyo istikfaarta meesha ka dhacaysa. walaal,
ma doonaysaa wanaag oo dhan waa tan bishii caafimaadku waxaa loo baahan yahay inaan ilaahay dib ugu noqonno waxaa loo baahan yahay inaan xaydxaydanno oon laalaabanno oon isku diyaarinno oon ka faa'iidaysanno bishan aaway dadkii doonayey inay cibaadaystaan aaway dadkii doonayey inay toobad keenaan aaway dadkii doonayey inay ilaahay u dhowaadaan aaway dadkii doonayey caafimaad iyo khayr waa tan bishii la sugayey ee khayrka badnayd inaan ka faa'iidaysanno ayaa loo baahan yahay si uu ilaahay inooga caafiyo xanuunadan jira waxaa loo baahan yahay inaan ilaalinno salaaddii taraawiixda inaan ciyaalka iyo dumarka aan barno waxaa loo baahan yahay bishan ramadaan inay noqoto bil aan ka liidan bilihii hore ee ramadaanadii ina soo maray waxaa loo baahan yahay inaan ka faa'iidaysanno wakhtiga waxaa loo baahan yahay inaan ilaahay in badan u noqonno oy bishaasi baxdo innakoo ilaahay u dhowaannay innakoo toobad keennay innakoo cudurro oo dhan ka caafimaadnay inaan noqonno dad wanaagsan ay noqoto bishani walaalayaal bil wanaagsan baa inoo timid bishaasi inaan ka faa'iidaysanno ayaa loo baahan yahay اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام اللهم اصرف عنا الوباء بلطفك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم عافنا من البلاء والوباء وارزقنا الشفاء من كل داء اللهم يا رب الأرض والسماء أنزل علينا الشفاء وأذهب عنا الداء وهزيمة الوباء اللهم إن كنت طردتنا من بيوتك لا عمرة ولا جمعة ولا صلاة في المساجد فلا تدردنا من رحمتك يا أرحم الراحمين ولا تؤاخذنا بما فعلنا وكن لنا ولا تكن علينا اللهم إن كان هذا الوباء والبلاء بذنب ارتكبناه أو جرم أجرمناه فإنا تائبون إليك منه ونادمون اللهم يا منزل الداء أظهر لنا الدواء واجعله في أيدينا سهلا ميسورا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين